another banger. Baby, calm down. Yo, this your boy. Maraykanka ayaa ku booriyey deeq bixiyaasha inay sii wataan wax aad uga sii badan sidii ay Soomaaliya ula xiriirtay macaluul. Xigasho, Netherlands, Japan ku soo biir xadka nagu xadidayo Jibtech ilaa Shiina. Erdogan ayaa laga yaabaa inuu ogolaado dalabka Finland ee NATO, Sweden. Intaasi waa wixii ka dhacay dunida 12 saac ee la soo dhaafay. Muqdisho xubin ka tirsan golaha wasiirada Maraykanka ayaa markii ugu horeysay booqasho ku timaada Soomaaliya tan iyo sanadkii 2015 waxaana ay ku boorisay deeq bixiyaasha caalamka in ay si degdeg ah u caawiyaan dalka ay wajahayaan macluusha dilaaga ah taasi oo ay ugu yeertay fashilkii ugu dambeeyay ee beesha caalamka. Safiirka Maraykanka ee Qaramada Midoobay, Linda Thomas-Greenfield, ayaa maqashay malaha digniintii ugu darnayd ee weli laga bixinayo dhibaatada dhimashada xad dhaafka ah ee xilliga ay Soomaaliya hadda tahay abaartii ugu dheeraa ee la diiwaangeliyo waxa ay hubaashiir dhaafi doontaa tii macluusha si rasmi ah looga dhawaaqay dalka. 2.11 markii in ka badan 1 milyan oo qof ay dhinteen. Markan dunidu waxay eegaysaa meelo kale, qaar badan oo ka mid ah saraakiisha bani'aadamnimada ayaa leh. Qaar badan oo ka mid ah deeq bixiyaasha dhaqanka ayaa gacmahooda dhaqday oo diiradda saaray Ukraine. Isku duwaha dadka degan Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Adam Abdelmoula, ayaa u sheegay Thomas-Greenfield xilli uu warbixin kooban ka jeediyey Muqdisho. Iyadoo safiirka Maraykanka uu diiday inuu si cad u sheego magac iyo ceeb khudbadeeda iyadoo ugu baaqday deeq bixiyaasha gargaar dheeri ah, iyadoo leh wadamada waa ay garanayaan cidda aan ka hadlayno. Isku duwaha dadka degan Qaramada Midoobay kama uusan labaynin. Midowga Yurub, tusaale ahaan, waxa uu hal eber kaliya bixiyey qorshaha wax ka qabashada bini'aadantinimo ee Soomaaliya sanadkii hore, ayuu Abdelmoula u sheegay Associated Press. Midowga Yurub wuxuu bixiyey 7 milyan iyo 7 milyan sida lagu sheegay xogta Qaramada Midoobay. Japan waxay siisay 7 milyan, Sacuudigana 2 milyan. Dhanka kale, Maraykanka wuxuu bixiyey ku dhowaad 8 eber, isagoo 3 bilyan siiyey Soomaaliya tan iyo bilowgii sanad xisaabeedka 2022ka. Safiirka ayaa Axadii ku dhawaaqay 4 eber milyan oo kale. Laakiin Maraykanku ma sii wadi karo bixinta lacagta heerkaas ah, xitaa haddii aysan jirin Ukraine. Thomas-Greenfield ayaa u sheegay ab waraysigiisa isaga oo intaa ku daray in Washington ay jeclaan lahayd inay aragto wadamada ku dhow gobolka Khaliijka, tusaale ahaan, inay ku deeqaan dheeraad ah. Waxay qeexday halista dilaaga ah toddobaadyada soo socda haddii ummadaha kale aysan kicin. Sida laga soo xigtay qiim, iyada oo aan wax tabarucaad ah laga helin deeq bixiyaasha kale, gargaarka cuntada iyo nafaqaynta muhiimka ah ee taageeraya 4-6 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ayaa dhammaan doona bisha Abriil. Thomas-Greenfield ayaa yidhi, taasi waxay noqon doontaa sida xilli roobaadka 6aad ee isku xigta ee dalka ooman la filayo inuu baaqdo. Maraykanka ayaa aad uga naxay xaaladda xun, ayay u sheegtay saraakiisha bini'aadanimada. Safiirka ayaa khudbadeeda ka jeedisay xarunta diblomaasiyadeed ee dhinaca badda ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho, halkaas oo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ay isku dayeen inay ka jawaabaan dhibaatada sii kordhaysa ee ay u sii dheer tahay khatarta amni ee qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah kaga imaanayso ururka Al-Qaacida ee Bariga Afrika ee Al-Shabaab. Washington, Japan iyo Netherlands ayaa ogolaatay heshiis ay la yeelato US in la xakameeyo marin u helka China ee loo adeegsado kombiyuutar oo horumarsan. Qof caan ah heshiiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Qofka ayaa diiday in la garto maxaa yeelay heshiiska weli si rasmi ah looma shaacin. Ma cadda ah markii saddexda dhinacba ay soo bandhigi doonaan heshiiska. Aqalka Cad wuxuu diiday inuu ka hadlo. Maamulka Biden ee Oktoobar ayaa soo saaray kontaroolada dhoofinta si ay u xadidaan awoodda Shiinaha si ay u helaan sicirka sareeya, kaas oo ay dhahdo waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo hub oo ay ku kacdo xaaladaha xuquuqda aadanaha iyo hagaajinta xawaaraha iyo saxsanaanta saadka military. Waxay ku boorisay dhammaan xulafada sida Japan iyo Netherland inay raacaan munaasabadda.
Shiinaha ayaa si xasaasi ah ugu jawaabayay, isagoo sheegay in yaraynta ganacsiga ay carqaladayn doonaan silsiladaha iyo soo kabashada dhaqaalaha adduunka. Waxaan rajaynaynaa in waddamada ay qusayso ay samayn doonaan waxa saxda ah, ayna ka wada shaqayn doonaan sidii ay u xoojin lahaayeen nidaamka ganacsiga badan ee bulshada oo ay ku hayaan harsan warshadaha caalamiga ah ee Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha. Tani waxay sidoo kale u adeegi doontaa inay ilaaliso danaha muddada dheer ee u gaarka ah. Afhayeenka Golaha Amniga ee Qaranka ee Aqalka Amniga Qaranka ee John Kirby ayaa sheegay Jimcihii in saraakiisha Netherland iyo reer Japan ay ku sugnaayeen Washington ee uu hogaamiyo wadaha uu hogaaminayo madaxweynaha Joe Biden. Arrimaha madaxweynaha Istanbul Turkiga ayaa soo jeediyey in waddankiisa uu ansixiyo dalabka Finland ee xubinnimada NATO ka hor inta uusan wax tallaabo ka qaadin Sweden, halka ay dowladdu ka soo saartay mudaaharaadyada Yurub, sababtuna tahay mudaharaadyo ka soo horjeeda Yurub iyo waxa ay ku tilmaamtay islamalka. Digniinta safarka ee la daabacay Sabtida dabayaaqada ayaa daba socota bannaanbaxyo isbuucii lasoo dhaafay meel ka baxsan safaaradda Turkiga ee dalka Sweden, halkaas oo ay kariinada u ololeeya Quraanka iyo kuwa barodiden dhacdooyinka ay adkaysay diidmada Turkiga ilaa iyo hadda si ay u ansixiyaan dalabka NATO ee Sweden. Sweden iyo Finland si wada jir ah ayay ugu qoreen inay noqdaan xubno ka tirsan isbahaysiga militariga, iyagoo tuuraya abtirsiintooda militari ee muddada dheer kadib dagaalka Ruusiya ee ka dhacay Ukraine. Muuqaal ah oo ka dhacay munaasabad la soo saaray Axaddii, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa muujiyey in Turkiga laga yaabo inuu ka soo biiro keliya Finland. Haddii loo baahdo, waxaan siin karnaa fariin kale oo ku saabsan Finland. Sweden way ka yaabi doontaa markaan siino fariinta kala duwan ee ku saabsan Finland. Erdogan wuxuu yidhi koox dhalinyaro ah oo ku sugan gobolka Bilecik. Turkiga ayaa ku eedeeyey dowladda Stockholm inay ku faraxsanaato kooxaha, waxay u malaynaysaa inay tahay ururo argagixiso ama hanjabaadyo jira oo ay ku jiraan kooxaha Kurdiyiinta. NATO waxay u baahan tahay ansixinta xubnaha ka jirta ee ay ku daraan kuwa cusub, laakiin dowladda Erdogan ayaa sheegtay inay oggolaanayso keliya inay qirto Sweden haddii waddanku uu buuxiyo xaaladiisa.